diyaaradda Sacuudi Arabian Airlines ayaa daqiiqada kadib dib ugu laabatay garoonkii ay ka duushay ee Boqor Cabdicasiis oo ku yaala magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya kadib markii hooyo Sacuudiyaan ah oo ka mid ahayd rakaabka diyaaradda ay qaybta nasashada ee garoonka ku ilowday ilmo yar oo ay dhashay. Arrintan la yaab kale ayaa dhacday dhammaadkii toddobaadkan. wargeyska The Gulf News oo ka soo baxa magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay in duulimaadka SV-832 ee diyaaradda Saudi Arabian Airlines oo ka baxayay magaalada Jidda una socday magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia uu ku soo laabtay garoonkii uu ka duulay kadib markii hooyo Sacuudiyaan ah maamulka diyaaradda ku wargelisay in qaybta nasashada ee garoonka Boqor Cabdicasiis International Airport ay ku soo hilmaantay cunug yar oo ay dhashay. muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya kabtanka diyaaradda oo codsanaya in loo ogolaado inuu dib ugu laabto garoonkii uu ka soo duulay xilli uu la hadlayay waaxda maamulka hawada iyo hagista diyaaradaha ee dalka Sacuudiga. arrintan ayaa wax la yaab leh ku noqotay waaxda maamusha diyaaradaha iyo qaybta qaabilsan borotokoolka. ilaahay baa nala jira, ma laabanaa mise wax kale ayaadna dhahaysaan, ayuu yiri duuliyaha diyaaradda xilli uu la hadlayay waaxda hawada Sacuudiga maamusha. howlwadeenada maamulka duulista hawada iyo hagista diyaaradaha ee Sacuudiga ayaa arrintan u gudbiyay madaxda sare si go'aan looga gaaro, iyada oo mar kale howlwadeenku weydiiyay madaxda ka sarreysa. duulimaadkani wuxuu codsanayaa inuu dib ugu soo laabto. mid ka mid ah rakaabka ayaa ilmaheeda ku ilowday qaybta duulimaadyada lagu sugo ee garoonka. waa arrin aad u xun, ayuu yiri howlwadeen cilada dhacday ugu gudbinayay madaxda sare. balse howlwadeenka ayaa mar kale ku soo laabtay duuliyaha diyaaradda isagoo weydiinaya inuu caddeeyo sababta dhabta ah ee uu doonayo inuu mar kale garoonka diyaaradaha ugu soo laabto. kabtanka diyaaradda duulinayay oo codkiisa kor u qaaday ayaa ku jawaabay, waan kuu sheegnay, qof rakaab ah baa ilmihiisa kaga yimid terminaalka, wayna diiday safarka inay sii wadato. howlwadeenka maamulka hawada ayaa ugu dambeyn ogolaaday duulimaadkaasi inuu soo laabto. waayahay, ku soo laabo ganjeelka, gebi ahaanba tani waa wax nagu cusub, ayuu yiri howlwadeenka oo la hadlaya duuliyaha diyaaraddaasi. dad badan oo faallo ka bixiyay muuqaal laga sameeyay dhacdadan iyo xiriirka dhex maray duuliyaha iyo maamulka hawada Sacuudiga ayaa aad u ammaanay kabtanka duulimaadkaasi oo ay sheegeen inuu yahay shaqsi naxariis badan oo bini'aadanimo muujiyay, isagoo tixgeliyay qof rakaabkiisa ah oo xaalad degdeg ku timid. inkastoo tani dhacdo la yaab la tahay, haddana dunida maaha markii u horeysay oo waalid ilmihiisa ku ilaawo garoon diyaaradeed. lamaane u dhashay dalka Israa'iil ayaa sidoo kale garoon diyaaradeed ku ilaaway gabadh ay dhaleen oo 3 sano jira bishii Abriil ee sanadkii 2008. dhacdadaas oo waqtiga warbaahintu aad u qaada dhigtay.